ومن أول العمارة البناء للمسجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله سبحانه وتعالى له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الرواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قبات بنى الله له بيتا في الجنة. هنيئا لكم أيها المشتاقون إلى الجنان، يا من يريد قصورا في الجنان، ويا من يريد أنهارا في الجنان، ويا من يريد الحور العين في الجنان. اغتنم هذه الفرص الذهبية في فضل بناء هذا المسجد الذي أسسه وبناه أول مرة حاج قرشال من سلوكه وماله ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. الحمد لله إله ومعبد سبحانه وتعالى بيت من بيوت الله تعالى ليكلي بغيك أراد الناس وخيرك بدنادي مالك من إله ليكلي مسجد كان وبجيدان ومسجد، لكن أسوأ مسجد هدنا سيدا أرتا والبحنة اللي يشاهد الناس ويكويا لإيه لغهد معي ويكويا لا حافظ اللي يراهدو عيش بيها صونا عيش بيها أو كبترسن بيغانا عن مغالبة أفقوية كترسن una dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo Afgooye. waa masjid yar oo la soo aasaasay haddana la doonayo maadaama dadkii muslimiinta ahayd oo ku dukanayay oo quraanka ku akhrisanayay oo ku i'tikaafayay masjidku ku yaraaday in la balaariyo oo dadka muslimiinta loo waasiciyo ayaa la doonayaa. masjidkan masjid raxmaana oo halkan ku yaala waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed in qof walba oo camalkaas khayriga ah oo adduun iyo aakhiro Ilaahay u barakaynayo inuu ka qayb qaato. marka masjidka dhismadiisu dad ashkhaas kuma koobna dalka Soomaaliyeed iyo ku nool iyo wixii dibadda ku nool oo Soomaaliya oo rag leh oo dumar leh waxaa loo baahan yahay inay si degdeg ah masjidka uga qayb qaataan oo aanu aragno sida wax badan ba soo jirtay haddana socota. masaajid aad iyo aad u waaweyn ayaa laga dhisay dhulkan magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa laga dhisay oo dadka Soomaaliyeed dal iyo dibadba ay ka qayb qaateen. haddana mar walba khayrka waa loo baahan yahay. la yashbac al-mu'minu min khayrin hatta yakuna muntaha wal janna wa rasuulku. qofka mu'minka khayr kama dhirgo ilaa jannada Ilaahay uu gaarayo. oo qofka shalay masjid dhisay oo saasliin ayuu masjid aba dhisay way ku dhamaatay. qofka hore masjid u dhisay haddana waa inuu khayrka sii badsadaa. Ilaahay ziyaado ayuu doonayaa ee Ilaahay nuqsaan ma doonayo. alxamdulillah walaalayaal warintii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan mahad celinaynaa masjidkan barakaysan. masjidkan marka walaalayaal kelimadii munaasibka ahayd si wanaagsan oo dhammaystiran waxaa inooga hadlay shaykhuna al-callaama sheekh maxamuud cabdulla cariif oo si faahfaahsan kelimadii inoogu soo jeediyey. beydkan masjidkan ku yaalla deegaanka ceelasha biyaha ku yaalla waad arkaysaan masjidku waa masjid ciriiri ah
waxaa la doonayaa dhulkiisa dhammaan in lagu waasiciyo. waa dhul ballaaran ayuu masjidku leeyahay oo hinti bar hinti ah ayuu ku fadhiyaa. weliba sida aan jecelnahay ilaahu hadduu naga aqbalo waa in dabaq laga dhiso oo masjidka maaragtaa dabaq laga dhiso la shugo. waan jecelnahay hadduu ilaahu ogolaado biidni illaahi tacaala. ilaahuna inoo fududayn doonaa biidni illaahi tacaala. masaajidkaas marka waxaan doonaynaa marka walaalayaal inaanu dhexda u xiranno qofkii maaragtaahay goofafkan boosas ku leh inuu maaragtaahay dhowr boos u soo iibiyo oo ilaahay dartiis uu maaragtaahay u baxsado oo beydkaa ilaahay uu ku sadaqaysto. qofkii maaragtaahay $1 heli kara, qofkii $10,000 heli kara, $100 qofkii heli kara, hal senti hal kun oo shilin Soomaaliya qofkii heli kara, inaan dhammaan aan maaragtaa ka faa'iidaysano. waa koon noo furan, waa fursad qaali ah oo dahabi ah oo inoo furan. oo maamulka oo masaajidka iyo deegaanka afkooda lagu hadlaayo. masaajidka marxalad badan ayuu soo maray, haddana wuxuu taagan yahay marxaladii oo lagu weynay lahaa. waxaan ka codsanaynaa dadweynaha dal iyo dibadba inaa akoomankooda iyo jeebabkooda iyo noo furaan ee masaajidka noo weeyaan noona waasiciyaan. wabilaahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.